السلام عليكم. السلام عليكم ومالك oo in le maxaan ku maalin wanaagsan sabti wanaagsan meel walba adduunka ka joogto waan salaamaya asxaabteeda maxaan ku raayay walaalahay Soomaaliyeed meel walba adduunka ka joogto waan wada salaamaya asxaabta ugu xiran asxaabteeda waa salaamaya qaaliga meel walba adduunka ka joogan Soomaaliya waa salaamaya Soomaaliya meel walba maxaan ku raayay yani Europe Mareykan meel walba adduunka ka joogan waa salaamaya waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaataan leeyahay Soomaaliya ha sraacdaan leeyahay Soomaaliya ha midoodaan leeyahay Soomaaliya hore u socotaan leeyahay Soomaaliya cadowgeeda Allah ha jibiyaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato maxaan ku raahdaa ishaag asxaabteeda meel walba adduunka ka joogtiin saas waxaan maanta rabaa barnaamijka aan ka hadlay maanta wuxuu yahay waa laba siyaabood arinta ugu weyn ee maanta macnaha meesha taala waxay tahay niman boqol oo baarlamaan isku sheegay ayaa waxay laba bilood oo fasax la siiyay oo lagu talagalay in wadankooda ay ku tagaan oo ay ku soo indheeyaan dhibaatooyinka ka jira iyo waxa meesha maxaan ku raayay yani dadkii ay u dhaarteen shacbiga Soomaaliyeed ay maartay macnaha ay ugu dhaarteen inay wax u qabtaan meeshii laga rabay inay wadanka Soomaaliya ay kala aadaan gobolada Soomaaliya waxay aadeen Kenya oo halkaas ay u aadeen maartay macnaha naftooda inay ugu nastaan kadibna oo Kenya oo ogtiin wadan cadowgeena inuu yahay wadamada dariskana uu kamid yahay Soomaaliya aad u nacab oo doonaya danaha khaaskana naga leh maxaan ku raahdaa ay tahay arintooda macnaha gorgortan siyaasadeed Soomaaliya ay doonayaan inay maartay macnaha ay saaxiibka ku leeyihiin maadaama ninka la yiraahdo xidig aad iyo aad u cambaareynaya meeshaas baarlamaankaas isugu keenay ragaas baarlamaanka isku sheegay isugu keenay doonayay maartay macnaha Soomaaliya inay qalqalka siyaasadeed ay ku abuuraan dawladan oo ah dawlad hadda taam 3 bilood jirta oo runtii rag wadaniyiin ay hogaamiye u yihiin ninka la yiraahdo Ra'iisul Wasaare Khayre aad iyo aad u salaamaya waxaan leeyahay Ra'iisul Wasaare guuleysan leeyahay hore u socon leeyahay Soomaaliya ha guuleysataan leeyahay Soomaaliya hore u socotaan leeyahay maxaan ku raayay shaqo horumarka Soomaaliya ka taliyaan leeyahay wasiirada Soomaaliya waxaan leeyahay shaqo sidoo kale waxa loo baahan yahay inay waajibaadkooda shaqo ay gutaan dawladda Soomaaliya waxa loo baahan yahay inay gacmaha isqodo qabsato xukuumadda waxa loo baahan yahay inay gacmaha isqabsato wasiirada Soomaaliya inay wadaniyada ka shaqeeyaan ayaa loo baahan yahay maxaan ku raayay ninka la yiraahdo maxaan ku raahdaa maanta arintaas ayaan ka hadlay arinta kale oo aan ka hadlayno waxay tahay ninka la yiraahdo Daahir Cali Sow ah aan isku wadan joogno oo marmar badan ayaan sheegay oo maxaan ku raahdaa yani nolosha ka dhacsan oo asaga dhanba noloshiisa ay ku kooban tahay magaalada Bareeda gurigiisana aan ka soo bixin inuu yahay banaankan aan soo aadi karin maxaan ku raahdaa ishaag maadaama uu ka galay dhibaatooyin badan uu ka galay wadanka Soomaaliya dadka Soomaaliyeedna aad iyo aad ay ninkaas u nacab yihiin waana nin aad iyo aad u liita maxaan ku raahdaa maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimahaas waxaan leeyahay Soomaaliya horta hay sraacdaan leeyahay Soomaaliya hamidoodaan leeyahay qaranka Soomaaliya hore u socdaan leeyahay wax intaana barnaamijka intaana hore ugu gelin waxaan rabaa maanta inaan arrin yar aan soo gudbiyo Ra'iisul Wasaare Khayre oo arrin yar ka hadlay ayaan doonayaa wax yar inaan soo gudbiyo kadib ayaan barnaamijka hore toos ugu sii gali doonaa insha Allah wax yar la dhageysto Ra'iisul Wasaare qaranka Soomaaliya ha noolaato inaan istaaganahay diyaarna u ahay inaan u dhinto dalkii haddii wiilasha Soomaaliyeed oo dagaalka kula jira shabaabka ay iiga yeeraan ma maqlaysaan wasiirada koonfurta difaaca ay iiga yeeraan safka hore oo difaaca waxaan idin ballan qaadayaa inaan diyaar u ahay inaan istaago waxay kalifaysaa Soomaaliya inaan nafteyda ku waayo wallaahi wax idin dhaaranayo diyaar u ahay waa maqlaysaan Ra'iisul Wasaare qaranka wuxuu yiri maanta kelmad wadaniyad leh asaga oo Ra'iisul Wasaare qaranka ayuu wuxuu yiri hadii aniga dagaal iga baahdo wadankayga inaan difaaco diyaar waxaan u ahay wadankayga inaan difaaco
marka runtii anaga xukuumaddan oo kale iyo wasaarahan oo kale weligan iyo allahan mana soo mari doono waxaa loo baahan yahay qaranka Soomaaliya dadka Soomaaliya inay difaacdaan baa loo baahan yahay cadawga Soomaaliya in la iska qabtaa loo baahan si wada jir ah Soomaaliya waxa loo baahan yahay hore u socotaa loo baahan yahay Soomaaliya waxa dadka qurbaha jooga oo qurba joogta ku dhibaataysan waxaan u sheegayaa inay leeyihiin wadan la yiraahdo Soomaaliya oo bada leh oo beera leh oo wax kasta leh waxaan doonaynaa waxaan farayaa oo aan leeyahay ganacsatada Soomaaliyeed inay wadankooda ay ku laabtaan wax ka qabsadaan mar badan ayaa hadalkaas ku soo celi waxaan leeyahay wadankiina ku laabto wax ka qabsado wax ka dhista wadan baa leedihiin iska dhaaf qurbaha iyo meelaha taagantiin iyo lacagtiin aad ku qasaarinaysaan maxaan ku raay wadamada Kenya iyo South Africa ilaa ku dilayno ku bahdilayo iska dhaafaan leeyahay waxaan leeyahay ganacsigiina u wareejiyo Soomaaliya wadankiina dhistaan leeyahay wadankiina wax qabsadaan leeyahay horumarka Soomaaliya ka shaqeeyaan leeyahay taada kale waxaan rabaa inaan sheego wadamadan ay ku nooshiin inaad ugu nooshiin si bahdil ah inaad ugu nooshiin nin Soomaali oo sharaf ugu nool Yurub ama Mareykan ma jiro nin walba noloshii maxaan ku raay maanta ayisa mustaqbalkiisa ciyaalkiisa waxa u dambeyn doonta in uu ay ka noqdaan ciyaalkiisana ay ka noqdaan gaala raac asagana meeshaan uu ku geeriyoodo ilmihiisana hadhowta macnaha iyo magaciisa halkaas ugu sii baabo maantay waxaan filayaa Soomaali 2 milyan Soomaali ah miya mise maxaa la 2 milyan oo Soomaali miya ayaa ku nool qurbaha waxaan u sheegayaa in ay ku nool yihiin nolol dulli ah nolol fool xumo ah nolol maxaan ku raacay nolol ka dhaca nolol ayatin la'aan ay ku nool yihiin ayaan rabaa inaan sheego in dareensiyo maanta ilmahaaga adiga مسؤول باكته هذا الكاس مرمر بدن أيام كعلي المها قاعد مسؤول باكته دولة لجوكت ودنك أجوكت يوروب أما إنجليز أي المها مسؤول وقته لما أنا نكرت هذا الله هذا شو المها دولة دوي كا قاضيسا العقب الوقوسية المها هذا مدلن ومعناه واحد شيء لكن دولة أي أسكله إلا سديتو ما أنتوا قارون ويلكا وهالكاس كبا حياة لما أنا هذي كرت ما أنا نكرت هذا لا هذا الشيء وحير أو أتلاسان سان وحور ربو دريق وقمر كعبية لما هذا كرت وحيري شيء يا ماشى نرشاد وقعد سنتين وطن كنا وحقف صنع له سوماليا كلها بتان له هاي سوماليا هالقولها بتان له سوماليا وحن له سوماليا سكوتش تان له سوماليا سكوتش تان له هراوس عطان له سوماليا هقول ستو سوماليا هنولا تان له وحن روا إنا إني شيء ما أنت maxaan ku raayay dadka ku xiran ama taageeraya cadawga Soomaaliya Allah jabiyo Soomaaliya cadawgeeda dhulka Allah ku daro hog Allah ku ridaan leh Soomaaliya cid allaali cidii dhibaato ku hayso Soomaaliya baaba iyo hog Allah ha geliyaan leh cid qabiilka wada Ilaahay hog ka ku ridaan leh cid Soomaaliya isku dirkeeda wada Ilaahay ha baab ashan leh Soomaaliya ha noolaataan leh ha guuleystaan leh ha sraacdaan leh ha midowdaan leh qaranka Soomaaliya waxaan rabaa inaan maanta inii sheego ninka la yiraahdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Khayre wuxuu mudan yahay amaan buu mudan yahay waxa loo baahan in la garab istaaga loo baahan yahay dawladda in la garab istaaga loo baahan yahay canshuurta in la iska aruuriyo loo baahan yahay wadanka inuu hore u socdo loo baahan yahay teeda kale waxaan rabaa inaan dhiirigelin iyo maxaan ku raayay salaan iyo bogaadin aan soo jeediyo ciidanka qalabka sida waxaan leeyahay wadanka adinkaas kale wadanka waxa loo baahan yahay maanta taariikh reeba wadanka Soomaaliya waxa loo baahan al-shabaabka inaad ku xiriirsiin magaalada caasimadda Soomaaliya waxa loo baahan inaad nabad ka dhigtiin baa loo baahan ku soo dabaashin baa loo baahan maamul goboleedyada Soomaaliya waxa uu sheegayaa maanta siyaasadan la inii kala tuuray ee kala qaybsanaanta iska ilooba gacmaha isqabsadaan leeyahay sidoo madaxweynuhu inuu ku yiri maalintii London waad ogeedeen gacmaha isku haysateen waxa loo baahan yahay saasoo kale in aad gacmaha isku haysatiin baa loo baahan yahay cadawgu inuusan ka faa'iideysan baa loo baahan yahay Soomaaliya cid walba cadow way la tahay 100 mar baa inii sheegay Mareykan bana doonin Yurub bana doonin Arab bana doonin Afrikaan bana doonin cid walba cadow wayna la tahay dariska kuwana la ahtaa cadow wayna leeyihiin waxa loo baahan yahay qof walba Soomaali inuu taas ogaado loo baahan Soomaali inay isku tashataa loo baahan ayaha inay ka tashataa loo baahan Soomaaliya inay ayadu isku tashataa loo baahan Soomaali ha noolaataan leh ha guuleystaan leh calanka Soomaali ha jiro ha joogaan leh ha noolaataan leh horaha martaan leh Soomaaliya ha guuleysato ha noolaato horaha socoto Soomaaliya midnimada Soomaaliya qaranka Soomaaliya hore u socdaan leh Soomaaliya ha guulaysato asxaabteeda meel walba adduunka ka joogtiin waan salaamayaa insha Allah videoga dambe ayaan uga sheekeyn doonaa xaaladda iyo meesha uu ku sugan yahay Nicolas Daahir Cali Sow arintiisu meesha ay marayso mar dhowna waxaan in ka ballan qaadnay horaan ku sheegnay in maxkamad aan soo saari doono wadanka Netherlands inaan maxkamad soo saari doono Holland aan ku wada joogeen Daahir Cali Sow oo ah nin tug yaani inaad wada joogeen oo wadani waxaan doonaynaa qof walba Soomaali inuu istaago ninkaas sidoo isaga qaban lahaa dadka Soomaaliya fidnada ka wada Daahir Cali Sow waa ninka ugu weyn
waa ninka ugu weyn waay ninka ugu weyn Soomaaliya dadka isku diray waa ninka ugu weyn waay Soomaaliya dadka ninka qabiilka u kala tuuraya isku diraya Soomaaliya isjecel maanta midooday daashay ninka rabo inuu isku diro oo qoriga isku dhiibo waa Daahir Cali Sow iyo ninka liya Maxamed Carab waxa loo baahan gacan bir inaad saga qabataan waxa loo baahan ninku dariska leeyahay inaad Daahir Cali Sow ama ninka liya maxaan ku raashay ninka liya Maxamed Carab ninku dariska leeyahay aan la hadlin aan wax ka qaban arintiisa waxa loo baahan yahay waxa weey waxaan leeyahay ninkaas nin wadaniya ma aha leeyahay anigana waxa igu ballan Daahir Cali Sow inaan soo xiro ama maxkamad soo taago meel xun aan la tagaa igu ballan waa mar dhowna waa arki doontiin natiijada Daahir Cali Sow uu ku sugnaan doono waa arki doontiin maxaan ku raashay waxaan leeyahay Soomaalida meel walba ay joogtiin waan wada salaamaya insha Allah videoga dambe iyo qaybaha dambe ayaan uga hadli doonaa arrimaha Daahir Cali Sow iyo xog soo kordha waxaan leeyahay Soomaaliya ha guuleysato horaa u socotaan leeyahay midoodan leeyahay Soomaaliya isku tashtaan leeyahay gacmo isqabsadaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato ayaan ku celcelinayaa mar walba ha noolaato Soomaaliya calanka Soomaaliya kor ha jiro Soomaaliya ha midoodo Soomaaliya horaa u socoto cadawga Soomaaliya Allah ha jabiyo ha loo soo duceeyo Soomaaliya bisha Ramadaan ha loo soo duceeyo in cadawga Soomaaliya Ilaahay dhulka ku daro marka waa asxaabteeda meel walba ay joogtaan waan wada salaamayaa salaama ayaan khayr ayaan isku wada ognaa insha Allah waa marmar badan ayaan saas kale ugu kulmi doonaa maxaan ku raaya Soomaaliya ha noolaataan leeyahay